السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا غيرت يوتيوب سلامي عشر كان ما تبعكوا سابسين ياهي سيدان صور ugu sameyn lahayn inuu yahay sida qof dhagax laga sameeyo kale tusaale aan sawirkan ayaa markaysana aan oo jaran sawirkan marka waxaan ka dhiganaa in aan ka dhigno darbi sameysan oo kale sida taalooyinka dadka loo dhiso kale sida uu sameeyay Photoshop CS6 marka cashada waxaan loogu talagalay dadka bilowga Photoshop ku cusub inay ka faa'iideystaan marka kooxda waxaan sameynaysaa image adjustment ayaa tagaysaa kadibna waxaad tagaysaa black and white ama alt shift control p kadibna okay ayaa leedahay wax kale kuma taabanaysid black and white ay ku noqonaya kadib waxa leeyahay kana duplicate ayaa leedahay meeshan ayaa fursa new ayaa leedahay kadibna name u yeelina 122 ayaan u sameeynaa kadib okay ayaan leenahay mid labaad ayuu noo furay midka kor waa kana mid labaad ayuu noo furay kan labaad waxa leedahay close ayaa leedahay calaamadaas extra kadibna inaad save gareyso ma rabtaa yes intee ku save gareynaysaa documentiga ayaa leeyahay waa inaad ku save gareysaa bsd inaad ku save gareysid oo Photoshop ka faylasha meelsha loo galiyay aan sawir ahaynin save ayaa leedahay kadib markaad save dhaadid waxa leedahay background ka ayaa tagaysaa control a ayaa leedahay kadibna control c ayaa leedahay inta ayaa imaanaysaa control v ayaa leedahay basi ayaad ku leedahay kadib marka basi ku dhaadid waxaad tagaysaa meeshii select waxaad tagaysaa filter waxaad tagaysaa distort waxaad tagaysaa displacement ayaad tagaysaa kadibna waxaad leedahay 10 iyo 10 oo ugu filan tahay kadibna okay ayaan leeyahay kadibna waxaan tagayaa sawirkii meeshuu ii yaalay away 122 kadibna fur ayaan leeyahay sawirka gudihiisa markii sawirkii hore ayaad ka dhex muuqanayo laakiin adiga ma dareemaysid kadib waxaad tagaysaa sawirkii hore ayaad control ayaa riixaysaa kadibna click ayaa ku siinaysaa sida selection ugu samaysid kadib marka selection ku samaysid waxaad tagaysaa kii hore ayaad ku laabanaysaa darbiga waxaad leedahay mask layer ayaa leedahay kadib sawirka wuu jarayaa kadib markuu sawirkaas kugu jaro waxaad tagaysaa normal ayaa tagaysaa waxaad leedahay multiply ayaa leedahay kadib multiply markaa dhaadid kadib markaa sidaa samaysid waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa image ayaa tagaysaa adjustment ayaa tagaysaa kadibna waxaad tagaysaa level ayaa tagaysaa wax yar ayaa dhinacaas ka soo qabanaysaa wide yar ayuu iftiin ayaa u sameynaysaa kadibna waxaad leedahay okay labadan sawir waxaad isku leedahay shiftiga ayaad qabanaysaa kadibna waxaad leedahay march layer ayaa ama control e ayaa la dhigi kartaa si isugu daro kadib waxaad u jeedaa sawirkii markaa si fiican u fiirisid aan weyneeyo qofkii korkiisa waxa u malaysaa in sida darbigii laga sameeyay marka sidaas ayaa Photoshop ugu sameyn kartaa markaas dib menu soo dhaho waxaad u jeedaa in uu sida darbiga haddii aan background-ka inta kala aan yeelan isku dayno in background-ka inta si fiican loo arko aan background aan u sameeyo kadib paint tool aan taabto waxaad u jeedaa color-ka inuu ka muuqanin oo laakiin muuqanayo hooskii wixii dham iyo kulli way joogaan marka sidaas ayaad ugu sameyn kartaa Photoshop-ka iyo dhammaan intaba marka insha Allah bidnaaga waxaan maleynaa inay ka faa'iideysan doontaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله